dhuumaalaysanayay xeebta magaalada Kismaayo markabkaas muddo taqriiban 6 bari 7 bari ayuu u taagnaa xeebta magaalada Kismaayo oo uu ku soo galay si sharci darro ah asagoo cid uu fasax ka haysto waxaa ku socda baaritaan xoog badan waxaa saaraa shaqaale 9 ruux ah wuxuu ka yimid ama ka diiwaan gashan yahay waddanka la yidhaahdo Madagascar jasiirada la yidhaahdo Madagascar markabkaas marka gacanta ayaa hadda lagu hayaa runtii waa markab weyn oo markab kalluumaysiya waxay dowlad goboleedka Jubbaland u xil saartay guddi 11 ah oo ka kooban hay'adaha kala duwan ee maamulka runtii wixii ka soo baxay natiijadiisana waa la socon doonaa si maartay furan waxaa hadda gacanta lagu hayaa shaqaalihii iyo markabkiiba aad iyo aad u mahadsantihiin waxaa jira maanta in halkan isugu yihiin mas'uuliyiintii dowlad goboleedka Jubbaland runtii halkan joogay waxa la isku yimidna waxay ahayd markabkan tahay halkan hadda inay muuqdo xeebta taagan oo runtii in muddo ah ku dhex jiray xeebta magaalada Kismaayo si sharci darro ah iyadoo cid bini'aadan oo og oo xiriir la sameeyay aan jirin runtii halkan waa lagu wada hadlay hadalkana runtii macluumaad ayaa la soo wadaarsaday markabkan runtii shalay baa ciidamada amnigu soo qabteen iyo ciidanka amniga soo iskaashanaya way keeneen baaritaan masaaka lagu sameeyay hordhaca baaritaankaasi wuxuu soo saaray ama wuxuu cadeynayaa wuxuu sheegayaa in markabkani si sharci darro ah ku soo galay shaqaalaha saaran tirada ay leeyihiin inta dhan yihiin meesha uu ka yimid waxa asagu uu ahaa markab wuxuu ka yimid waddankan la yiraahdo maartay Madagascar shaqaale ilaa 9 ruux ah yaa saaraa oo qaybaha kala duwan isugu jira isku waddan ka yimid markabku waxa weeye waa markab weyn oo markab kalluumaysiya oo runtii qalabkii iyo warshadii wixii oo dhan leh marka anagu maanta waxaan ka wada hadalnay markabkaas in baaritaankiisa runtii la dhameystiro dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu xirsaartay guddi 11 oo ka kooban hay'adaha maamulka oo maartay wasaaradaha kala duwan leh waxaan ka sugaynaa marka natiijada wixii soo baxaa natiijada insha Allah bidina kariim dhameystiran guddigaas baaritaankiisa waxaan jeclahay markaas inaan la soo wadaagno oo la qaybsano natiijadiisa wixii ka soo baxa dadka reer Jubbaland oo dadka Soomaaliyeed insha Allah bidina dadka sharci darrada ah ee inta badan ka kalluumaysa Soomaaliya aad u fara badan yihiin maanta guur bay gaareen ciidamada Jubbaland maadaama ay soo qabteen markab si sharci darro ah oo kalluumaysanaya xeebaha Jubbaland maxaad baa u diraysaa dadka noocan kale kalluumaysta waxaan u dirayaa runtii waddankan waddankeena muddo badan baad ogtiin dhibaato badan baan ku soo jiray oo bari iyo badba leh wax ugu daranahay badeena kan hadda waaba ku hadda la helay intaan la helinay faraha badan ee runtii ku jirtana aad iyo aad ay u badan yihiin waxaan u dirayaa marka in ummadda Soomaaliyeed kalluumaysatada ay soo sheegaan wax allaaliya wixii xeebta ku jira oo sharci darro ah si aan uga qayb qaadano in sharciga cadaaladda la mariyo adduunku xuduud u leeyahay ama bad ha noqoto ama bari ha noqoto ama maartay cir ha noqoto waddanku waxa weeye meel kasta waxay leeyahay xuduudaha si ogolaashada sharci ayaa lagu soo geli karaa wixii aan sharci ahayn waxaan aqoonsanaa sharci darro inuu yahay marka waan anaguna hadda u diyaar garownay وانا هنا إن شاء الله بدنا كريم قلبكي لو أديكسن لها مارت حاجة بدأ عيدنكي وديار وي مركز تاسو عندي لها أن كبورين لها وشيء لها بتكلم استدى رجب الله إن وحي كو أدن كرام كوباين يسوي شيء كقبطان ولوسو نبت بليان مارت يسوي شيء نسوي رجلين عيدنا أمني كسي طلاب شرعي وفصل لغة قاعدة أيوة الواحد جدا حدود هذا afayeenka dawladda Jubbaland ayaa sheegay in ay ciidamada sii wada doonaan dadaalkooda ku aadan la dagaalanka dadka sida shardarrada uga kalluumaysanaya xeebaha dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Jubbaland waxaana uu sheegay oo ugu baaqay in dhammaan dalka Soomaaliya ay jiraan dad fara badan oo ka kalluumaysta kuwaas oo uga digay inay sii wadaan hawlahaasi